qof kastoo aad wax u qabtayna cafi aan iswada cafino anigana waxaan halkan rabaa inaan ka ballan qaado qof kastoo dembi igu galay waa cafiyey waxaan rajaynayaa sidoo kale anigana in la wada cafin doono haddaanan iswada cafinin cid markaas noo istaagayso oo cafis noo keenaysa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan Soomaaliya meel walba oo dunida daafeeda ka joogtaan oo walaalkiina King Daadinina oo idinla ku soo dhawaada barnaamijyadeyda. Maanta barnaamijyadeedu waa ku duwan yahay barnaamijyadii hore. Waxaan ka hadli doonaa taariikh nololeedka gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqii Muqdisho Injineer Yariso. Allah u naxariista marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariso waxa uu ku dhashay degmada Hodan ee gobolka Banaadir 16 Agoosto 1965. waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe sare waxa uu kaga baxay Banaadir Secondary School isagoo sidoo kalena ka qalin jabiyay jaamacadda Gahayr kulliyadda Civil Engineering sanadkii 1986. shaqooyinka uu soo qabtay dowladda hoose ee Lana intii u dhaxaysay sanadihii 2000 ilaa 2003. waxa uu noqday shirkudoonka kooxda Somali Council Group intii u dhaxaysay May 2004 ilaa Oktoobar 2008. waxa uu noqday madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladdii ku meel gaarka ahayd intii u dhaxaysay Oktoobar 2008 ilaa Febraayo 2009. waxa uu noqday agaasimihii maamuuska xafiiska madaxweynaha intii u dhaxaysay Febraayo 2009 ilaa Agoosto 2009. Agoosto 2009 waxaa loo magacaabay wasiirka lacagta dowladdii ku meel gaarka ahayd isagoo xilkaasna hayay ilaa July 2010. July 2010 waxaa loo magacaabay wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha dowladdii ku meel gaarka ahayd isagoo xilligaasina hayay ilaa December 2010. 3 December 2010 waxaa loo magacaabay la taliye sare ra'iisul wasaaraha Soomaaliya afhayeenkii dowladdii ku meel gaarka ahayd isagoo xilkaasina hayay ilaa 19 June 2012. 20 June 2012 waxa uu noqday agaasimihii Radio Barkulan isagoo xilkaasina hayay ilaa 25 Abriil 2013. 26 Abriil 2013 waxaa loo magacaabay la taliye sare iyo afhayeenka xafiiska madaxweynaha Soomaaliya isagoo shaqadiisiina hayay ilaa 23 Abriil 2014. intii u dhaxaysay 24 Abriil 2014 ilaa 21 Maash 2017 waxa uu ahaa la taliye sare oo dowladda Soomaaliya kala taliyay warfaafinta iyo isgaarsiinta. 21 Maash 2017 waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya. 21 Janaayo 2018 waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. waxa uu ifku uga tagay 7 caruur ah 2 wiil iyo 5 gabdhood. maanta ay taariikhdu tahay 1 Agoosto 2019 ayuu ku geeriyooday magaalada Doha ee dalka Qatar. waxaynu leenahay Allah u naxariisto Jannatul Firdaws Allah ka waraabiyo Injineer Yariso.